السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان أصحابتك وحيران channel kan miisaamo ku soo dhawaada video cusub oo aan ku miisaami doono maskaxdeena iyo aqligeena bal sidayna la noqoto sheekooyinkan soo socda. Isbitaalada ama goobaha caafimaadka ee dhammaan dunida waxaa loo aasaasay oo loo sameeyay laba ujeedo oo cid waliba taqaano mid ahaantood, kuwaas oo kala ah daaweynta xoolaha ama guud ahaan xayawaanka. laakiin waxaanad ogeynaya ah inay jiraan isbitaallo aad u qariib ah oo yaab badan kuwaas oo lagula socdo xaaladda caafimaad ee waxyaabo dadka aad uga fog. haddaba fiidiyowgan ayaan waxaan ku soo qaadan doonaa isbitaallo uu jiritaankoodu ka yaabin doono, balse marka hore intaynaan gudagelin mawduuceennan waxaan ka codsanayaa inaad fadlan channelka subscribe saarto si aad ula socoto fiidiyowyada soo socda iyo si ay noogu noqoto dhiirigelin. sidoo kale fiidiyowgan like saar, asxaabtaadana u sheer gare. mahadsanid. isbitaalka koowaad ee aan ku soo qaadan doono fiidiyowgeena ayaa waxa la yiraahdaa isbitaalka Fiidmeerta. isbitaalkan waxaa sameeyay oo aasaasay nin ku waashay jacaylka uu deegaanka iyo dabeecadda u qabo, gaar ahaan waxa xiisihiisu ku sii gaar yahay daryeelka fiidmeerta yaryar ee hooyooyinkood raaci kari waaya ama ka hadha dhaawac soo gaaray dartii iyo xanuun haleelay. waxaanu ninkani soo ururiyay tiradii ugu badnayd ee bukaanno fiidmeer ah. danaynta iyo ihtimaamka uu hayo fiidmeertu wuxuu gaaray xataa inuu lacag aad u badan ku bixiyo hawshan, ilaa uu ka gaaray heer uu maryo gaara u sameeyo. xataa kamuu ilaabin inuu u diyaariyo bustayaal iyo sariiro u gaar ah makhluuqan habeen noolaha ah. ana rumaysanaysid haddii lagu sheego in shaqaale aad u fara badani ka howlgalaan goobtan caafimaad, iyagoo masaasada shaqsiya ama ku haba oo caafimaadkooda ilaaliya laga soo bilaabo marka ay dhashaan, kadibna marka ay daaweeyaan ee ay ka caafimaadaan xanuunkii ama dhaawicii, dib ay ugu celiyaan deegaankii ay ku noolaayeen. ugu dambayntiina aan idiin sheegay isbitaalkan waxaa lagu magacaabaa Tolga, wuxuuna ku yaalaa Australia, gaar ahaan magaalada Atherton. isbitaalka labaad ee yaabka badan ee aan ku soo qaadanayno fiidiyowgeenan waxaa la yiraahdaa isbitaalka Boombalaha ama Caruusadda. Boombalaha ama Caruusaddu waxa ay ka tahay dhanka carruurta wax aad ugu muhiim ah, iyagoo ula ciyaara oo ula qosla sidii ay tahay ilmo yar oo caadi ah. sidaa darteed waxaa dalka Australia laga aasaasay isbitaal lagu magacaabo Sydney First Doll, kaasoo la aasaasay sanadkii 1913. waxaana aasaasay Harold Shaban oo ahaa ganacsade haysta dukaan lagu iibiyo boombalaha oo uu ka soo dhoofin jiray waddanka Japan. ujeedadiisu waxa ay marka hore ahayd inuu dukaankiisan u bedelo meel lagu dayactiro boombalaha burbura ama jajaba markii ay joogsadeen safaradii dibadda ka imanayay oo uu sababay dagaalkii labaad ee adduunka. waqtigaas oo ay goobtan ka howlgeli jireen ilaa 70 qof oo shaqaale ah oo ku kala jira 6 qol oo kala duwan, oo qol kastaana takhasus gaar ah uu jidhka boombalaha ah qaabilsan yahay. haddaba ilaa hadda waa mid shaqeeya oo furan isbitaalkani, iyadoo uu haysto wiil uu awow u yahay ninkii aasaasay. ra'yihaanna ma xuma haddii ay carruurta boombalaha uu ka jajabo ay dib ugu hagaajinayaan oo ay ka farxinayaan, laakiin waxaaba dhib ah goobtan oo aanad cabsi darteed geli karaynin marka malaayiin indhood oo wada daloola iyo malaayiin madax oo dhukuray ku soo wada eegaan, iyadoo ay yaalaan iskaraabkii iyo burburkii boombalaha oo la ururinayay in ka badan 100 sano. isbitaalka saddexaad ee yaabka leh ee aan ku soo qaadanayno fiidiyowgeennan waa goobta caafimaad ee loo yaqaano Tranquil. goobtan caafimaad ee Tranquil waa mid ka mid ah meelaha ugu cabsida badan adduunka oo ku taala dalka Canada. meesha uu ku yaala isbitaalkan oo laga dhisay ayaa ah goob hore u ahaan jirtay beer weyn oo magaalada ka baxsan, iyadoo laga furay dhakhtar u gaar ah cudurka qaaxada ama TB-da sanadkii 1907. iyadoo la xidhay oo aanu shaqayn isbitaalkani ayaa haddana dib loo furay sanadkii 1985, laakiin haddana waa la xidhay isla markiiba sababtoo ah bukaankii ku jiray goobta oo dhammi waxay sheegeen inay habeenkii ku arkaan goobta kubada iftiimaya oo meel kasta yaacaya, iyagoo sidoo kale ku arkay waxay goostii ama reer aakhiraadka u yaqaanaan reer galbeedku oo cilmi ahaan noqonaya uunjinka. kadibna markii cabashadii bukaanku dhammaan weyday ayaa si abadiyan ah loo xidhay goobtan oo weli dhismihii iyo agabkii caafimaadka iyo sariirihii sidii u yaalaan. yaase og inay hadda tahay goobtani goob caafimaad oo qaabilsan bukaanada jinka. nacuudu billaahi min ashaydaani rajiim. intaas ayaan ku soo koobaynaa daawada fiidiyowgeena, laakiin ha ka ilaawin haddii fiidiyowga aad ka heshay inaad subscribe dhahdo channelkan, isla markaana fiidiyowgan like saarto asxaabtaadana aad u sheer garayso. aad ayaad u mahadsantihiin. wasalaamu calaykum waraxmatullah.